سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي mahadle subxaana wa tacaala ilaahay baa keligii mahadle subxaana wa tacaala waxaan maanta idinku yeedhay laba qodob baan doonaya maanta ka hadlo mid waxa weeye waa safarka madaxweynaha iyo raashinka ka keenay magaalada Saaye ciyaalkan madaxtooyada fadhiistay xamar mid waxa weeye shacabka reer Soomaaliland oo iyagana aan fariin u diriyo marka hore waxaan aad iyo aad u hambalyeeyaa horta wadanka Gini iyo madaxdooda sida cisiga leh ee sharafta leh ee wafdigeeni madaxweynuhu hogaamiyay soo dhaweeyeen waxaan u aragnaa talaabada maanta aynu qaadnay tan iyo tii ka horeysay ku tagnay Kenya ya qaar badan soo socda insha Allah taala in noqon doonto qaar horseeda siin u heliheen xuquuqdeeni waxaan sheegnaa dadka reer Soomaaliland horta marka ugu horeysa Soomaaliya dawlad kama jirto qalad weyn bay ahayd inaynu nidaaha Soomaaliya la hadlina dawlad aan jirin in la hadlo maaha laga bilaabo waxaan jecelahay madaxweynuhu ku soo noqdo in qaraar la soo saaraa dawlad soo saartaa la yiraahdo wax wada hadala oo Soomaaliya la yeelana maadaama aanay jirin dawlad Soomaaliyeed oo dadka ka wakiila oo nala siman oo dadku soo doorteen oo cashuur qaadata oo xuduudeeda ilaalisa oo badeeda ilaalisa aanay jirin la fariisanayno Soomaaliland iyo Soomaaliya laba dalbe ahaayeen mid waa jira kii kale ma jiro ka kale markuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala u yimaado oo waliba gacan ka geysanayno ayaan wada hadli doonaa wada hadalka Soomaaliland ay la leedahay kolba kooxda timaada xamar waxay nagu qootay dhibaato marka wadamada u tagno aan ilaahay waxaan jecelahay inaanu dal jiri jiraan nahay 60kii iyuu ka baxay in itiraafnaan baan rabnaa waxay ilaahan dawaata idin wada socon Soomaaliya de ka hor dhicmayno bilow heshiisyaane marka dhibaato bay noo keentay waxa adduunka dawladaha itiraafada dawlad itiraafta member states ay itiraafta failed state dawlad aan jirin oo aynu dawladii aynu sidii ka adkaanay ka bacay dawladii ma jirin marka waxaan leenahay wada hadalada hala joojiyo xiriirka hala joojiyo bidihiina aleedin dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliya ma jirto maanta ciyaalkan Koreeda ah dadkii dalka u badnaa dawladii afweyne nacabka ahaa riday ficil tamiyaan ayuu ka soo dhaxbaxay inankan yar la yiraahdo farmaajo fiil Soomaaliya waxa fadhiya wax weeye farmaajo عود جمالك دهارات يا عبد العزيز عبد السعيد نكايرا أفتاين ما فديا waxay ku tashadeen inay Soomaaliya ay dib ugu celiyaan kacaanki waa caruurtii kacaanka ee dadaabiyo laga qaaday xiriiqa qaxoontiga ee Kenya oo wax ku soo bartay halka oo ciil qaba waxay isticmaalayaan laba arrimood mid waa mid lacag ba isticmaalayaan wadamo shisheeye ka heliyaan mid waxay isticmaalayaan nabad sugidii wadamada dictatorska iyo ciidamo shisheeye waa taasi keentay in baydhaba 15 qof ay ku dilaan qofkii doonaya ay saaraan ninkii dadku doonaya xilaan wata keentay in maalin kasta xamar ay dadka ku laayaan dadka bajaajka wada ku laayaan wata keentay inay guriga ugu dhacaan dadkii xoreeyay Soomaaliya ka xoreysiyad bale wata keentay inay meedkooda xitaa cidla ku aasan waxay markaas ku hamiyaan waxay yiraahdaan markaan ka soo adkaana dawlad goboleeda Soomaaliland galino ugu qaadamayso ku sheekaya waa afartayna yar iyo inta caga ku qaxataan hadaba waxa siiyay dhiiridnimada waxa siiyay waxa weeye maamul xumaanteena kala qaybsanaanteena وغاشينا سلادينتينا قبيالد ما يحكوا هالين وعلينا هاي مدحوينا وحنا dadka hamide madaxweynaha oo dadka mideeya daldalaacii ka soo qabtay ku dhacay doorashadii ka kaba waxaan leenahay waa in doorasho u qabta
doorasho waa inuu qabtaa dowladaha hoose iyo wakiilada qabta dalkan waxa weeye waxaad moodaa imanka inuu istaagay aanu shaqaynayn taas waxay keentay frustration dhalinyarteeni calankii faqashta ay howladaan qaarkood ay xamar tagaan qaarkood u heesaan niyad jab baa ku dhacay dadka waa in dadka niyadooda lasoo hagaajiya waddan laguma wadi karo micro management ninka waa single minded masax keliya iyo qofku ma wadi karo waxaa intaa ka daran reer yar halkan degan oo maxamuud saleebana ayaa isna inoo hanjabiyey halkan idin ku sheegay maxamuud saleebaan waa cabdi ciise ka badan cabdi ciise maamul bay samaysteen ya dowlad bay iska dhigeen ya puntland bay la baxeen innaga abaday sooliya sanaag baan xoreynayna sooliya sanaag horta ma yaqaanaan sudaanka ay warsageen waxaan leeyahay war wala maxamuud saleebaan aan wax ka aqdhicinaynin dhulkaaga dagaal ka gelin yaanu noqon sanaagta bari dhul lagu reegdimo yaanu noqon waa xaaraan bay ka tahay in xadka Soomaaliya bedelaan oo maxamuud saleebaan ay bedelaan super power iska sheega hadda durbaanka qabiilka la joojin waayo waxaan sheegay maxamuud saleebaan dagaalka ay koonfurta cid degan wad garanayso waa niman irira haddana waxay siidagu ugu dhufto maanta siidiga haddana ugu dhufto in sandwich ka dhigi doono xamarku wajiin wasaasan u sheegay xamar waa magaaladeedii haddana maanta tago walaala joogin marka aad anaga xamar magaaladeeda naga dumin karo maxamed siyaas baa naga dumin kari waaye ya afartiyada ciyaalkii kureedii Soomaaliya wax ma yeeli karaan waxaan leenahay Soomaaliya ha toosto madaxweynaha waan soo dhaweynaa waxaan leenahay anaga iyo wadani aan soo dhaweyno aan tusno inaanu anagu qaranka Soomaaliya ka soo horjeedin mucaaradana hay maamul xumada ka soo horjeedin nidaam darada ka soo horjeedin sharci darada ka soo horjeedin saami qaybsanaanta aan dadku u sineen magaalada awoodda dalka aan ka soo horjeedin oo leenahay cadaalad reform buu dalkan u baahan yahay waxaan ugu baaqayaa xuska kala mucaaradka ee wadani in Britain soo dhaweeyna madaxweynaheena tusna cadowga kaftankeena iyo loolankeena ay moodeen inaynu isku soo gurmanay intaan isku soo gurmano ayaa uu leeyahay bila anagu dabar la cunaa leena shaf la cunaa male wiliga yal naga ma adkaan never in history ala wiliga leena jibin laana wiliga dulmi kuma anu dulma sameeyno oo isdaafacna xaqan ku dagaalama marka ciyaalka aan taariikhdaba garanayn Allah waxaan ku leeyahay waxaad ku jirtaa oo u magan tahay walaalo yar oo tagtay dalkan maxamed siyaad bari wadriidnay USC ayaad u magan tahay waa ku aad kaga jirto taangiga ka raacday markad baxaysa ee suuqa tagi karin برق ده عود يعني كله قوي يجمعينه وهنقول أنا هاي وسوتشنا وويك أب كول شيء توحي كل عين وويب كول وحنا توصية هالكمانته لإنسان لا ينود الحسدي قال لي نقول قارن ما يصير سمعنا أنا كانوا بخبطين أول بالله على الدونا لا سعان بالله على الدونا برب بالله محيب أنا يدوين قريبين ما تغير الدبا إيه كتيرة ومجانو لبي لبعضن كن أو إذا ماشي شيء أي مجانوي أنا ومجانو من هي أنا ذلك يتشوفنا ما كان ولا واحد يدوها صحافة ده وقتنا لو كان بس قريت تاجا دولته we have to rally behind the president and the government وأنا دبك الله ما أنت وحيلات تيتان ما أنت وكله 9/11 كله ما تاي 9/11 كل عاي مجانا سمريكان أي ما أنت عيال كان ماشى فريستي وحي سميين أي لم تاي وأنا تهدين إن رجع مجانا في USC بنادر يجوا يسكفوا جي عيال كانوا وحي كهرلين حسد كحلين وأنا كسود ويننا كوا كانوا حنا كود ضيدا أو موشية إن إهل نهاي أو موشية لنا جبر بري كرين توسع يعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسبيرا معارف وداني يوفق الدسمة لسنبارك هذا واحد وانا وش هذا هذا وانا وش دورة شاقبته دولة شقي شاقبته وطيلة حقبته دولة هي الدولة دي سيء الشعب ويكلجوين ما أنت واحد لأنه أعرف وحوي دولة عن شقينين واستجنت الحوينة كلية ما شقين كله وحلينا هاي دورة شاقبته في الشبه السماية دولة طيلة
oo maanta waxaan haysanaa opportunity fiican baynu haysanaa intaasoo waddamoon la xidhiidhno diyaar inoo ah hadda insha allahu tacala laakiin haddaan gudaheenu hagaagsaneen dee waxba iskama celin karno siyaasadda dibadda waa reflection wata gudaha dadka niyaddooda hala soo celiyo garbaan isqabsano doorasho inoo dhacdo dad tayo leh ilaahay subxaana wa tacaala nebiga yuusuf markii loo dhiibiyey xilka wuxuu yidhi waxaan ahay xaafidu amiin baan ahay buu yidhi dad xaafidu amiin aan samayno oo karti leh oo ammaanada ilaalinaya jibjiriintan meesha fadhida sida cabdiraxmaan dheer oo kale doonaya fadhiya 15 sano waa inaan ka tuurna dusha dad tayo la keena oo ammaanada ilaalinaya dawladda hoose maanta dawladda hoose ma haysana bilaa sharci weeye magaalada waa gudaafad kaliyaha ku xanuunaya baabuurta iska dayna isbeer baardo inaga isbeer baar u baahanna god miidan bay noqdeen saasi lacag soo cunaya si deertay kuwaas waan ka tuurnay insha Allah taala marka la eriyana wala la geliyaa audit inta dhul qaateen waxay marayaan imaka xaqan salaxlay toon bay u dhow yihiin si dhulka u iibsaneen way habta ka tan Soomaaliya Kenya tarsan waar waxaa lama hadlo waar ma tarsan baa haysta waxaa la haysto lahaas hada qiimeynaya markaad safarka ay ka soo noqotay waxaa sheegtay in madaxweyne farmaajo uu diyaar u yahay wada hadal maxaad maanta ku keentay Soomaaliya maxaa ka dambeeyay behaviorkooda ka dambeeyay behaviorkiisi in yaro qabiili uu noqday atiisi qabo maskax waxa ka qabo noqday ma xukumi karaan waa haraagi maxamed siyaad barawey never again mudane gudoomiye magacaygu Cabdiraxiin Axmed Madi telefishin kushaya ka socda dhawaan magaalada Hargeysa waxa ka qabsoomay shir ay yeesheen salaadiinta deegaanka bariga Sanaag iyo Soob oo cali khalif qayb ka yahay siyaasiyiinta arrintaas shirkaas sidoo warkiisaayo soo tahabeen maanta kadib saar qadada u sameeyay tamad arag Soomaaliland baa la mideynaya tabashada la dhageysanaya wax bari galbeed iyo galbeed Soomaaliland waa mid waa family way shaqeeyeen wata maanta wada qadayna si cadam iyo gid wada qadayni ya waxaan taageersan soo dadkeeni ma ayaga adeegay isiigu sheereeyaan waxaan dhaqan habar dhul bahantii waxaan dhaqan warsigeeliye haday one item iska dhigeen waa fiicantay laakiin waa dadkeeni xildhibaan Cabdiraxmaan Dheer wuxuu ku eedeeyay Soomaaliya horumarkeedu doonayo dhinaca kalena uu ka hor istaagi doono community international war ma xasan wasiir war in ka war heed naga tag idiga waxa ka dhigay macawad baa wasiir khaarijiya xaqu xukuma war qorshe ma wada hadal damo jira ma jiro wada hadal damo jiro waxaan ku marka hore weyn qaldanay waxa nagu qasbay mara Ingiriiska oo nimankii waxa jiray US marka dalka haystay laakiin markii hore waxa diideen dawladaha laba jeerba waynu ka adkaanay dawlad aan hadalna ma jirto in adduunka la xidhiidhnaa oo aynu adduunka wadan oo macdanteena istiraatiijiyadeena aynu iibinahay dimuqraadiyadeena inaga isku meeraysanay oo iibin kari weeyeen oo isku sanay inuu cawadiyo waxaan qeyr keenayeen jamaal inala soo hadalaan marka waxa weeye kaasi wasiir maaha waa inay yaro been ku nool inay yaro reer garoowa xagu meel qoran ma xukume